كرسي المقابل كراسة المقابل الكل يهين فدرال وحان ربايلان كابتو أنا قوة نبدون أحمد إسماعيل أحمد جمال إن أن كهدو وحي جرى حقيقة لا كجرى مامل كجبلان إيو الحلوان نضع أي سالك كهدين الرياسي ميسا كهد وحان ربايلان كسو بلاوه حلقي اللي سميه كراستن أما حلبانا فدرالها وحان حقيقتنا إن لغا صوب بلاغو الزانية إن أنه رفعنا أن كفر ديني كرسياس هوب 79 سقال سنو 8 سنو أوهوري إيا سنة كان هدد أمادي وليبا waxaan xaqiijinayaa ilaa iyo hadda inaan anaga oo reesaan kursiga hadda ilaa hadda ku fadhino oo ay ku fadhido xildhibaanad farxiya xasan ilaa iyo hadda xilkii aan laga wareejin waxaan u mahad celinayaa maamulka Jubbaland waxa kale oo halkan uga aan raali gelin buuxda anigoo ku hadlaya magaca reesaan magaca beesha reesaan oo kamid ah beelweynta maqaabul waxaan ka raali gelinayaa suldaanka suldaan faarax gefkii iyo qaladkii aan lagu talagelin beeshno aanay u dhammayn ee lagu sameeyey ee lagu hagadaamada lagu tilmaamay ka raali gelinayaa suldaanka 104 ku raali gelinaya haddii aan ka hadlo annaga maqaabul aad iyo aad baan ugu heliyey ma cabanayno annaga waa la yaqaanaa taariikhnada boqortooyadii reer Sacad baanu nahay cid aanu ka cabanayno iyo cid aanu hadda aanu leenahay ama way idin dhacday ama way dhici doontaan ma jirto tolkay maqaabul ah way noo heliya kow maalinkii uu u tartamayay ina biixi kursiga ninkii ka joojiyay ee yiri wariyaa qalbigiisa kaga joojiyay wuxuu ahaa suldaanka ee saaray ina cali shuuri maxamed cali shuuri markii labaad oo farxiya ay ku fadhiisanaysay waxa soo bixiyay ee farxiya u codeeyay waxay u badnaayeen makaahil laba qof baa u taagnaa reer Sacad marka waxaan halka ka cadanayaa wixii shala dhacay wax qalad ku dhacay waxa laga yaabo odayaasha shalay meesha ka hadlay qaarkood inay 3 bilood ama 4 bilood joogaan Kismaayo oo aysan aqoonin xeerka Jubbaland oo aysan aqoonin dhaqanka maqaabul ee wadankan waxa hubaalaha aan ognahay maqaabul hadduu joogo Jubbaland iyo hadduu joogo gobolka gobolka wajaa in maqaabul uu kuraasa du yahay iyo hadduu dhiig yahay iyo hadduu dhaqan yahay maqaabul ka midaysan yahay maalin walba qoladii baahan in la siiyo hadda doorashada Kenya waxa ka taagan waa reer Sacad waxa dooranayana ma aha reer Sacad kaliya waxa dooranaya ee wata waa maqaabul ninka walaalka ama dadka walaalaha inaad xumaan media u mariso inaad tiraahdo waa la dhacayaa inaad tiraahdo 9 sano baan qatanahay 9 sano ee qatanahay xagee taala farxiya xasan miyana ahayn gabadh reer Sacad miyana ahayn gabadha hadda kursiga hob 79 gabadha ku fadhida farxiya xasan miyana ahayn waxaan halkan aan ka cambaaraynay siyaasiyiin ma sheegata oo maqaabul oo ku xiran dawladda federaalka Soomaaliya inay beeshi kala daadinayso inay beeshi lacag la hoos ordayso inay shirkan qabta leeyihiin inay dadkan cambaareeyay leeyihiin inay reerkii maqaabulaha ay kala daadinayaan oo Jubbaland ka horkeenayaan oo maamulkii iyo systemkii Jubbaland ee jiray ay ka hor iska horkeen ku wada baan halka ka cadeynaa mana u dulqaadanayno Jubbaland waxay tahay baan nahay kursiga haddii loo tartamayo maqaabul tartamayo tartankan koow ka nahay haddii aanu helana waa nasiibkano haddii aanu weynana waa nasiibkano
sagaal sano inaan anagu hadda aan ku fadhino oo ilaa hadda ku fadhino baan cadaynayaa anigoo ah axmed maqaabilo waa ogyahay jubbaland waa ogtahay federaalna way ogyihiinba oo farxiyaal kursiga ku fadhiya marka kursi annaga aan ku fadhino inaan nabadoon iyo tolkaya ku kala fogaano oon tolkana ku cambaarayno oo tolkana aan ku xagxaganno sax maaha maqaabul afar oday oo meel ka hadashay oo cambaarayn usoo fadhiisatay maqaabul kumana kala go-ayo kumana kala daadanayo waxaanu diyaar u nahay kursigaa tartankiisa annaga oo reer sacda haddii tol la reebo ama maamul la reebo diyaar baanu nahay wax alla waxay maamulka jubbaland uu gooyaan anagu aan ku gowracno federaal baanaan shaqo ku lahayn daday soo adeegsadeen oo kismaayo jooga oo intaa furfurka jubbaland iyo dhibaataynta jubbaland 24 saac kolba meel dhinac ka soo galayaan annaga raalli ka ahayn oo aanan shaqo ku lahayn reer sacad waa maqaabul 6 lafood ee maqaabul buu ka mid yahay wax walba naga dhaxay dhalasha naga dhaxaysa ugama ergoonayno beel kuumaday ugamana ergoonayno jubbaland cid kasta sareysan iska beddelada annaga isxaleena doorashada dhacaysa waan tarsamayna ama waa harayna haddii la reebana waa harayna haddii la reebayo waa guulaysanayna laakiin cabasho cidna uu annaga hadda aan uga cabanayno oo waana la dhacayaayay cidna dhici karta ma jirto reer sacad cid weligeed dhacday iyo cid dhici doonta iyo cid xoog wax kaga qaadatay ma jirto walaalahayana mar walba waa noo soo buriyaan naguma taagsadaan tol baanu nahaysano iyagaan kaambegareeya codkanaga keli ah hataa kuma guulaysan karo waxa codkaan ka raadinaynaa waa makaahil 16 cod baan ku leenahay 16 cod laguma guulaysan dadka aanu rabnay inay codkana siiyaan waa makaahil musharaxiinta reer sacad ee ku xidhan dadka u shaqaynaya federaalka ee ku xidhan iyaguna ku sii xidhan dadka jooga kismaayo ee federaalka u shaqaynaya dadka musharaxiinta reer sacada ku xidhanow maqaabul iskamana horkeeni kartaan maqaabul annagaa kuwaan ku dhalay ay wax ku sii dhaleen annagaa u taagan waxay ahayd maalinkii waxaan xasuustaa suldaanku 3 jeer loo heliyay kow maalinkii maxamed cali shooriye uu uga qaaday ina hebel beexi laba maalinkii intuu magacii axmed xaasid tiray uu ku qoray maxamed cali shooriye farxiyaa ka dambeysay oo hadda ku fadhida ninkii kambeynkeeda iyo waxeeda iyo xoolihiisa ku bixiyay maqaabulba reer sacad maan maqaabulba tolkii intaasoo dhan noo sameeyey ee noogu samreeyey ee haddana maqaabulnimadii weli taagan inaanu dad kale aanu annagu intaanu uga tallaabsano ama kuumado uga dacwano ama dadka siisheeya uga dacwanana raalli kama noqonayno jubbaland baan annaga nahay jubbaland waxa ay noo garata weliba madaxweynaha naga jubbaland axmed maxamed islaam isagaa mas-uuliyadda maamulkaan uga dambeynana wax walba qof walba oo arrintaas shalay ka xumaaday hadduu maqaabul yahay iyo hadduu cid kale yahayba anigoo ah axmed raaligelin bulshada 114 ayaan siinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu